magaalada Harar ayay muslimiintu aasaaseen qarnigii koowaad ee hijriga waana magaalo qadiimi ah oo dhacda bariga qaaradda Afrika hadii si kala loo dhahana waxay dhacdaa dhulka loo yaqaan Ardul Habasha Harar waxay ahayd magaalada kaliya ee dhacda geeska qaaradda Afrika oo mar ay mamnuuc ka ahayd inuu galo qof gaal ah kaliya waxa loo ogolaa inay ku noolaadaan amba ay booqdaan dadka muslimiinta dadka magaalada ayaa ahaa kuwa ku dhaqma shariicada islaamka taariikhda Harar ayaa mid iftiimaysa waxayna nasiib u yeelatay inay caasimad u noqoto imri bariga qaaradda Afrika taasoo eelka magaalada siinaysa sharaf gaar ah sanadii 1520 miilaadiga ayuu hogaamiyihii muslimiinta Sultan Abu Bakar wuxuu maamulkiisii u raray magaalada Harar wuxuuna ka soo wareejiyay magaalada Zaylac ee ku teesan badda cas sabab la xiriira weerar joogto ah oo uga imaanayay ciidamadii Gartaqiiska kuwaas oo badanaa gubayay magaalooyinka muslimiinta ee xeebta geeska Afrika ku teesan magaaladan ayaa ahayd mid loo soo raasan jiray cilmiga sharciga ah iyo midka maadiga ah sida uu sheegayo nin taariikhyahan ah oo ka soo jeeda magaalada Harar منذ تأسس مدينة هرر على مر آلاف السنين فقد اكتسبت هذه المدينة tan iyo markii la aasaasay magaalada Harar muddo 10 sano laga joogo waxay magaalada fac weyn leh kasbatay waxyaalo fara badan oo iyada u gaar ah cimiladeeda iyo jawigeeda ayaa ka dhigaya mid ay noloshu aad ugu haboon tahay intaasi waxa u sii dheer goobta ay kaga taalo bariga qaaradda Afrika oo ka dhigaysa xarun ganacsi oo ka dhaxaysa dawlado dhowr ah waxaana ay sidoo kale ka caawisay in cilmiga laga faafiyo كانها في أن تصبح مركزا تجاريا للعديد من الدول وساعدها في نشر العلوم أيضا muslimiintii bariga Afrika ayaa weerar joogto ah waxay kala kulmi jireen ciidamadii dawladda Itoobiya oo taageero ka helay Boortaqiiska markii Harar ay noqotay caasimadii imaarada islaamiga ah muslimiintu waxay ahaayeen kuwa daciif ah marka loo eego awoodii ku xindaabneed ee Itoobiya balse si lama filaan ah ay u yeesheen awood waxayna bilaabeen weerar rogaal celis ah oo ay ku qaadayaan ciidamadii Amxaarada halyeeyigii taariikhda baalka dahabka ka galay Ahmed Ibrahim Ghazali oo ku magac dheeraa Ahmed Gurey ayaa majaraha u qabtay hogaanka muslimiinta wuxuuna magaalada Harar ka dhigtay xarunta taliska ciidamada halkaas oo uga duulayay dhamaanba dhulalkii ay maamuleysay gashida Itoobiya magaalada Harar hadda waxay caasimad u tahay gobol isla magacaas wata waxayna dhacdaa bariga fog ee wadanka Itoobiya loo yaqaan waxay isku xirtaa waddo istiraatiiji ah oo u dhaxaysa dhulka Soomaali galbeed iyo Itoobiya inteeda kale gobolka Harar hadda waa midka ugu yar wadanka Itoobiya uguna dadka yar magaaladan waxaa soo maamulay in ka badan 72 amiir sida taariikhyahanadu ay sheegayaan amiirkii ugu horeeyay ee maamulay magaalada Harar waxaa la oran jiray Xabuuba وتفيد المصادر التاريخية المكتوبة أن هرر بدأت تحكم نفسها كحكومة في القرن التاسع الميلادي بعهد أميرها الأول الأمير حبوبة xogaha taariikhda ah ee qoran waxay sheegayaan in Harar ay bilowday inay dadkeeda maamul u gaar ah sameystaan qarnigii 9aad ee miilaadiga xilligii uu madaxda ka ahaa amiirkeedii ugu horeeyay ee Amiir Xabuuba Harar waxa soo maray ilaa iyo 72 amiir kuwaasoo soo gaaray ilaa 1887 waxaana la aaminsan yahay in diinta islaamka Harar ay soo gaarsiiyeen ganacsato muslimiin ah kuwaas oo ka soo degay xeebta dekada Zaylac taariikhdu waxay kaloo sheegaysaa in magaalada Harar oo ah mid ka mid ah maraakiista islaamka ugu muhiimsan ee ay Itoobiya haysato in ay qarniyo aad u badan soo maamuli jireen madax iyo mas'uuliyiin muslimiin ah في إثيوبيا كانت تحكم لقرون عديدة من قبل الأئمة والأمراء magaalada Harar ayaa 500 kiiloomitir u jirta Addis Ababa caasimadda Itoobiya halka 360 kiiloomitir ee dhanka koonfur galbeed uga beegan tahay magaalada Berbera ee xeebta badda cas ku teesan magaaladan ayaa leh taariikh islaami ah oo gibigeedba ku dul wareegaysanaysa jaafinta diinta islaamka taariikhyahanadu waxay sheegaan in ganacsato ka yimid dhanka dhulka jasiiradda Carabta ay diinta islaamka soo gaarsiiyeen Harar iyo bariga Afrika hijradii qaar ka mid ah asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku yimideen Ardul Habasha ayaa bilow u ahayd in diinta islaamka ay ku faafto mandiqada oo idil waxyaabaha ay la gaarka tahay magaalada Harar ayaa ah waa magaalada kaliya oo ku taala qaaradda Afrika
oo derbi uu ku wareegaysan yahay. cadowga magaalada oo badnaa iyo weeraradii ay kala kulmi jirtay gaalada Itoobiya ayaa ku kalifay hogaamiyaashii muslimiinta in derbi ay ku wareejiyaan Harar ayna u sameeyaan dhufaysyo waaweyn oo muslimiintu ay ribaad uga jiraan halkaas oo cadowga ay kula dagaalamayeen. Harar waxay leedahay ilaa 5 albaab oo magaalada laga soo galo lagana baxo, waxayna kala yihiin Baabu Salaam, Baabu Nasri, Baabu Rahma, Al-Bahr al-Ahmar. sidoo kale 5 albaab ee magaalada waxaa ka dul dhisnaa ilaa 24 burji ama taagaag lagala socdo dhaqdhaqaaqyada cadowga. Cabdimalik Marwan oo kamid ah khulafadii dawladii Umayyiinta ayaa muslimiinta bariga Afrika ka yuureeyay xamladii Saliibiyiinta Xabashida iyo Boortaqiiska ay ku soo qaadeen muslimiinta mandiqada sida Imaaraadka ka jiray magaalada Harar. marka laga soo tago in Harar ay ahayd magaalo jihaad, haddana waxay ahayd caasimadda ganacsiga bariga Afrika sababtoo ah waxa isugu imaan jiray ganacsatada mandiqada iyo kuwa badeecadaha ka keena wadamada Carabta. xadaaradeeda islaamiga ah ayaa Harar u suurta gelisay in mar ay noqoto magaalo leh warshado iyo wax soo saar maxalli ah sida dharka iyo qalabka militariga oo dadkeedu ay farsameyn jireen una dhoofin jireen dibadda. marmarka qaar Harar waxaa loogu yeeraa magaalada manaaradaha iyo dhufaysyada. waxaa sidaas loogu magacaabay masaajida iyo dhufaysyada oo aad ugu badnaa. gudaha Harar waxaa ku yaala 90 masjid iyo 10 makaatib iyo mataaxiif islaami ah. mas'uul ka tirsan dawladda Itoobiya ayaa sheegaya in magaalada Harar ay lafdhabar u tahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee wadanka ayna isku xirto dhowr magaalo oo wadankaasi ka tirsan. Harar no بمزجم ببزعت تمزجبا. لقد كانت مدينة هرر تعتبر من إحدى المدن الإثيوبية التي كانت تزاول النشاط التجاري بشكل كبير، ولذا نجد أن مدينة Harar waxay ka mid ahayd magaalooyinka ku yaala Itoobiya ee uu ganacsi xoog leh ka jiray. sidaas daraadeed ayaana waxaad hadda arkaynaa in magaca magaalada Harar wax badan taariikhda lagu qoray sababo la xiriira dhaqdhaqaaqeeda ganacsi ee aadka u balaaran. قد دونت في سجل التاريخ كثيرا بسبب أنشطتها التجارية البارزة. 3 qarni ka hor waxaa Harar loo aqoon jiray magaalada Abaadir, waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan geeska qaaradda Afrika. nin mustashriq British ah oo lagu magacaabi jiray Richard Burton ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee gaal ah oo gudaha u gala magaalada Harar sanadii 1854 miilaadiyada. dawladii gumaysiga Ingiriiska ayaa Itoobiya u gacan gelisay magaalada Harar sanadii 1887 kolkaas oo ciidamadii gaalada Amxaarada ay ixtilaaleen magaalada ayna ka geysteen xasuuq daran oo karan ah ehelka magaalada. boqorkii Itoobiya ee xilligaas Menelik II ayaa cilaamiyay in Harar la hoos geeyay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Harar ayaa caasimad u noqotay maamul islaami ah oo ay leeyihiin muslimiinta geeska Afrika, waxayna ka madax banaaneed maamuladii kale ee ka jiray wadanka Itoobiya intiisa kale. markii Itoobiya ay qabsatay Harar waxay furtay 5 albaab ee magaalada, waxayna amartay in gudaha Harar laga dhiso kaniisado ay leeyihiin dadka Nasaarada ah ee xoog lagu dejiyay magaalada. warbixin ka soo baxday qaramada midoobay sanadii 2012 ayaa lagu sheegay in gobolka Harar ay ku nool yihiin dad dhan 210,000 oo qof oo badankood ay muslimiin yihiin. duleedka magaalada Harar waxaa ku yaala dhufays weyn oo lagu magacaabo Jaqaal, kaas oo la dhisay intii u dhaxaysay qarniyadii 13aad iyo 16aad, waxaana dhufayskaas la dhameystiray xilligii uu talada hayay haleegii lagu magacaabi jiray Amiir Nuur.